شيخ الصومال وي الحمد لله وقت كان عد ما أنت إيمان له أم بالدين له أم بأقون له أو شيخ ما رحت شيء كرته أنت سوي هديه كرته مجرته حقيقة مركا الحمد لله شيخين إلهي يا أفسدي ما الخير بدن با إلهي ودي أنت سوحك بدن أول الله يا مجرته Soomaaliya haddaanahay dal iyo dibad meel ka soo joogno maanta aan u soo ducayno umri barakaysan ayaa Ilaahay siiyay sheekheena jannatul firdawsatul a'la ayaan shaki nooga jirin in saacadaanba ruuxdiisa la geeyay maxaa yeelay waxaaba ku tusaayaba sharafta iyo maqaamka uu leeyahay nisbada uu iska leeyahayo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الله تعالى في كتابه العزيز كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم إلهي سبحانه وتعالى وحالنا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ما أنت ومارتيا يوم السبت وحا إلهي سبحانه وتعالى رحمة ديسة إلهي أتقي أو إلهي أفصدي شيخين جليل كهاي عالمك أهاي عابدك أهاي علامك أهاي قطبك زمنك أهاي ما أنت أدونك عالمك دمانتيسا وحان شكي نوغجرين إنو قطب الزمان أهاي شيخين شيخ عثمان شيخ عمر شيخ داود علسو شيخ عثمان حدق لو يقانو مقالة مقدشو أيا إلهي كو أفصدي وحي إلتهي إناي غني عن التعريف أو يهيو شيخ ما أنت أوصن أبانين إن ضدك الله برو إلهي سبحانه وتعالى أيا أمدي صبري وضدك الله بري أسقنا الحمد لله نفتي سأسا ضدك بري إنتاس عمري أو سوجوغي صغير نمديسي أو وحقرتك بلابي تعليمتي أو برتيو رباني قاهيدي إيه إنتاس أمد إلهي أوسونو لي دينت إلهي أوسونو لي وها وقتي سقوقاتي وقت قيمة بدن أو شرف بدن أمدان أمة المحمد عمر هذا إله أبركيي عمر بركيسن أيا إلهي سيي شيخنا جنات الفردوسة الأعلى أيان شك نوغجرين إن ساعدان بروح ديس اللقيي wixii laga sheegana waa waxaan markaas waxba weyn aan taraynin alxamdulillaah sharaf bani aadan iyo karaamaha duu leeyahay tii ilaahay uu siiyay ayaa maarataya midda ugu weyn ah zaminka maanta la joogo maxaa yeelay waxaaba ku tusaayaba sharafta iyo maqaamka uu leeyahay nisbada uu iska leeyahayo intaasoo culummo waaweyn oo ajillaa oo caalimiin ahoo mashaahiira inuu ku abtirsado asaguna dhaxalkoodii uu qaatay intaasna uu dacwada iyo diinta islaamka fidinteeda ku soo jiray wuxuu shiiq u yahay caalamka dhammaantii shaykhul islaam weeye shaykhu soomaal weeye alxamdu lilaahi waqtigan cid maanta iimaan leh amba diin leh amba aqoon leh أو شيخ ما رحت شيء كرته أنت سوي هديه كرته مجرته حقيقة مركا الحمد لله شيخين إلهي يا أفسدي ما الخير بدن با إلهي ودي أنت سوحك بدن أول الله يا مجرته Soomaaliya haddaanahay dal iyo dibad meel ka soo joogno maanta aan u soo ducayno asagoo maarataya waxa la yiraahdaa al-kaamilu yaqbalu al-kamaal kaamil ayuu ilaahay ka dhiga laakiin kamaal waa aqbalaya marka insha Allah ta'ala waxaan leenahay ilaahay bedelkiisi Allah na siiyo qalbigeyna kuma taal wax bedeli kara la arkaa laakiin ilaahay u sahlantahay subhanahu wa ta'ala intaasoo ilaahay awliyadiisa saalixiina oo waxna asaga ay dhaleen waxna wax ka soo bartay waxna la soo sameyntamay
ayuu la soo joogay ilaahayaana asaga ku beddelay haddana alla waxaan weyddiisanaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa maqaamkiisa ilaahay noo waariyo oo in shaa allahu tacaalaa culummadii soomaaliyeed oo dhan ay maaragtay badiil ay u noqoto asagana waxaan ugu duceeyaynaa soomaaliya oo dhan annagoo lisaankooda ku hadlayna in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa jannaat firdowsa uu geeyo ilaahay qalbigeenna uu dejiyo ilaahay sabar uu naga siiyo maaragtay inta muslimiinahoo maqashay intaan soo gaari karin iyo intii maanta soo gaartay na in shaa allahu tacaalaa ducadooda iyo dadaalkooda iyo juhdigooda waa ku mahadsan yihiin in shaa allahu tacaalaa ma dhahayna shiikha taariikh heblo maalin heblow ow dhashay saasay ahayd ma u baahna maxaa yeela waa haniyun cani taxriif weeye keliya waxa weeye maanta oo taariikhdu ay maaragtay bisha oo sannadka cusub oo maaragtay hijriyada ay tahay 14 ay tahay taariikhduna ay tahay 1446 ay tahay iyo midda miilaadiyadoo ayaduna 20 oo ayaduna bishii 7 2024 ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oofsaday sheekhayni jaliilka ahaay oo weynaay ilaahay agtiisa ka weynaay cid maanta qalbigeeda iimaan uu geliyo sheekh cismaan xidig ayaa saasa amba xag uun maaragtay adduunyo amba xumaan ictiqaadaysoo iimaan ku jira maanta ma jirto qofkii iimaan ilaahay ku shubay waxay ictiqaadinaysaa inuu ahlullaahi uu ahay owliyada ilaahay oo abraarta ahaa oo waaweyn zamin walba ilaahay ka khaalib weeli maayo dad wanaagsanoo saalixiina ilaa qur-aankaasu uu taagan yahay ee qiyaamadii ay ka dhowaanayso marka in shaa allahu tacaalaa firdowsaan u rajayhaynaa aclaa faraadiya shirjinaad ilaahay idankiisa in shaa allahu tacaalaa saas ayaana ku macasalaamayhaynaa haadaa wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu